maalinta axadda 14 May oo biri ku beegan dalka Turkiga waxaa ka dhacaya doorasho madaxweyne iyo mid baarlamaan waxaa codeyn doona dad gaaraya 60 milyan doorashadani waa mid xiiso iyo xamaasad badan waxay ku soo beegmaysaa 100 sano guuradii aasaaska jamhuuriyadda Turkiga kadib markii dagaalkii koobaad ee adduunka ay ku burburtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo Turkiga iyo meelo kamid ah bariga dhexe ee Yurub maamuli jirtay madaxweynaha haatan talada haya Erdogan waxa uu ku ololeynayaa in Turkiga oo 100 sano jirsaday isagoo ah madaxweynaha dalka waxa uu ku faanayaa in horumar baaxad uu gaarsiiyay Turkiga intii uu hogaaminayay waxyaabaha uu sheeganayo Erdogan ee uu ku doonayay in dib loogu doorto waxa kamid ah dhaqaalaha inuu kor u qaaday bixinta deynta IMF ku biirista G20 wax dhoofinta oo korortay iyo mashaariic horumarineed oo waaweyn kaabayaalka dhaqaalaha tiknoolajiyadda difaaca iyo hubka iyo waxyaabo badan ayuu ku doodayaa in wax badan uu ka qabtay mudayahana in mar kale oo keenaanka u qabto Turkiga sidoo kale doorashadani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Turkigu haatan wajahayo dhaqaale xumo iyo sicir barar saameyn weyn ay ku yeesheen dhulgariirkii February ka dhacay Turkiga caabuqii COVID-19 iyo saameynta dagaalka Ruushka iyo Ukraine doorashadani waa mid taariikhi iyo masiiri ah waxa lagu tilmaamay doorashada ugu muhiimsan caalamka sanadkan 2023 waayo natiijadeedu waxay saameyn doontaa dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida gaar ahaan Ciraaq, Suuriya, bariga dhexe, bartamaha Aasiya iyo Afrika Turkigu waa xubin NATO kamid ah waana quwad soo koraysa mid dhaqaale iyo ciidan ahaanba waxa uu kaalin soo ifbaxaysa ku leeyahay qaamaamulka dunida sidaas daraadeed kala bar dunida ayaa si dhow u dareynaysa natiijada doorashadan laga soo bilaabo midowga Yurub Mareykanka Ruushka iyo Ukraine Carabta iyo Afrika haddaba madaxweynaha wadanka ee talada haya 20 sano Recep Tayyip Erdogan waa la isu xulufeysanayaa si xilka looga tuuro reer galbeedka ayaana ugu horeeya doorashadan waxaa lagu galayaa qaab isbahaysi ah waxaana ugu waaweyn labadan isbahaysiga qaranka waa kan Erdogan waxayna ka kooban tahay xisbiga talada haya ee cadaaladda iyo horumarka xisbiga qowmiyadda ee MHP iyo xisbiga yaryar sida PYOK iyo HDP isbahaysiga dadka waa kan mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu oo sharaxan yahay rasmi ahaan waxayna ka kooban yihiin 6 xisbi waxaana xisbiyadaas kamid ah xisbiga jamhuuriga ee CHP iyo kuwa yaryar sidoo kale xulafada mucaaradka waxaa taageersan xisbiga weyn ee Kurdiga ee HDP haddaba aynu ka eegno waxyaabo kooban labada musharax ee ugu cadaalad xilka madaxweynaha Turkiga oo biri doorashadiisu ay qabsoomayso labada musharax ee tartanka madaxweyne dhex marayo midka koobaad waa Recep Tayyip Erdogan 69 sano jir soo hogaamiyay Turkiga 21 sano 12 sano oo ra'iisul wasaare ahaa iyo 9 sano oo madaxweynenimo ah horay waxa uu soo noqday duqa magaalada ganacsiga iyo dalxiiska Turkiga ee Istanbul waa codkar madaali ah oo wiligiis looga adkaan doorasho oo magaciisa ku galay haatan waxa uu ku ololeynayaa hoggaan la soo tijaabiyay inuu leeyahay iyo inuu deganaan siyaasadeed iyo mid dhaqaale u horseedayo dalka aan eegno musharaxa la tartamaya Kemal Kılıçdaroğlu waa 47 sano jir soo hogaamiyay xisbiga mucaaradka ugu weyn ee CHP kaasi oo aasaasay hogaamiyihii jamhuuriyadda Turkiga aasaasay ee Mustafa Atatürk Kılıçdaroğlu siyaasadda ka hor shaqaale rayid ayuu ahaa sanadkii 2002 ayuu xildhibaan xisbiga jamhuuriga noqday sanadkii 2010 ayuu hoggaanka xisbigaas qabtay waxaanu ku guul dareystay isagii xisbigiisu inay Erdogan kaga adkaadaan doorashooyin hore uga dhacay Turkiga waxa uu ka tirsan yahay dadka laga tirada badan yahay ee heesta mabda'a calaawiga ee shiicada u dhow Kılıçdaroğlu waxa lagu tilmaamaa inuu san codkar ahayn balse uu ku wanaagsan yahay koox dhiska iyo xulufaysiga waxa uu ku ololeynayaa inuu Erdogan xukunka ka rido dalkana nidaamkii baarlamaanka dib ugu celiyo sidoo kale Turkiga uu ku celiyo xayndaabka reer galbeedka si kastaba doorashada madaxtinimo ee Turkiga ee Kılıçdaroğlu iyo Erdogan ayaa biri qabsoomi doonta waxaana si gaar ah doorashadan isha ugu haya dunida oo dhan si gaar ah hadii la eegana wadamada muslimiinta iyo kuwa reer galbeedka oo kala taageeraya Erdogan oo heesta mujtamaca muslimiinta dunida oo dhan iyo Kılıçdaroğlu oo reer galbeedku ay dabada ka riixayaan